بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ولا ليال marka hore waan in salaameynaa salaamta islaamka intuu salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. salaanka bacdi waxaan u mahad celinayaa runtii markiiskan qiimaha badan ee aynu joogno ee sida quruxda badan u dhisan, dadkii dhisay iyo kuwii gacanta ku hayay iyo kuwa wax ka barta iyo macallimiintooda khaasatan runtii aad baan ugu mahad celinaynaa, waana u ducaynaynaa. mahad celin oo keliya ma aha, waxaan leenahay wax weyn baad qabateen, wax weyn baad ummadda islaamka u haysaan, halkaa ka sii wada in sha allahu tacaala. maraakiista lamidka ana saas oo kale waxaan u mahad celinaynaa oo kale mas-uuliyiinta muxuu ahaa inagala soo qayb galay bandhigan. waxaan u mahad celinayaa oo kale dadkii soo qabanqaabiyey majliskan iyo fadhigan iyo muxuu ahaayey shirkan soo qabanqaabiyey iyo xafladdan bandhigga ah. waxaan u mahad celinayaa oo kale buuggan aad iyo aad u fiican dhallinyaradii qortay, labada nin oo muxuu ahaayey dhallinyarada ah ee buugga qoray, runtii waan u ducaynaynaa iyagana. waxayna tuseen haddaan reegaarisan nahay inaan buug qori karro, inaan buugaag badan qori karro, oon adduunka wax ku soo kordhin karro yaa ina bareen. aad iyo aad baan iyagana ugu ducaynaynaa. waxaan leenahay waxaad tihiin hormuud baad tihiin, horay u sii socda in sha allahu tacaala. walaalayaal, waxaa fiicnayd buuggan buug u dhigma oo ah dee gabadha wanaagsan baa la yidhi sax, marka waxaa dhiman wiilka wanaagsan isagana in laga qoro sidii hadda uu sheegayey muxuu ahaayey mudanihii iga horreeyey. wiilka wanaagsan markaa gabdhuhuna inay qoraan oo buug kan oo kale ah oo cadaalada inay qoraan baan insha allahu maraakiis waaweyn baan hadda leenahay oo xafsa bin siriin iyo khadiijo iyo xaawo koosaar iyo hadda maraakiis waaweyn baan leenahay oo gabdhuhu aad bay wax u bartaan. 10 sano ka hor ma jirin maraakiista hadda maanta jirta ee dumarku ay leeyihiin iyo qaabka wax loo bartaa ma jiri jirin 10 sano ka hor. runtii xalaqaad iyo waxyaabo uun hoos loo akhriyay iyo madaaris maaragtay sida khadiijo oo kale way jireen, laakiin maraakiis waaweyn oo hadda xaawo koosaar oo kale iyo xafsa bin siriin iyo kuwo kale oo waddada ku soo jira ma ayna jiri jirin. runtii hawsha waan muxuu ahaayey gabdhaha qaaliga ahee wadaadada ee hawsha isu taagay aad baan ugu mahad celinaynaa. buugga insha allahu bandhigyada ku soo xigana waan sugaynaa in buug ay gabdho qoreen oo wiilka wanaagsan ama ninka wanaagsan lagu qori doono haddii ilaha yidhaha insha allah. intaa ka bacdi walaalayaal, waxaan horta isu dardaarmaynaa taqwada ilaahi subxaana wa tacaala. waxaa weeye dad islaamaan nahay oo meel isugu yimid, waa inaan ilaahay isxusuusinno. dabcan wacdigu waa iga horreeyey baan filayaa, iftitaaxii qur-aankuna waa iga horreeyey. waxaan leeyahay intaasaa inagu filan, laakiin kulligan waxaan isu dardaarmaynaa inaan ilaahay ka cabsanno. cabsidu dhammaanteed markii la isu geeyo waxay isugu tagtaa maaragtay ma dhaafto, allaha laga cabsado ma dhaafto. khulaasadeedu waa intaa. waxaan leeyahay gabadha wanaagsan, nin kasta oo raba inuu guursado dabcan wuxuu rabaa gabadh wanaagsan. hooyo kasta iyo aabbo kasta wuxuu rabaa waxay rabaan gabadhoodu inay wanaagsanaato. marka kulligeen wanaag baan rabnaa, gabadh wanaagsan inaan guursanno, gabadh wanaagsan inaad dhasho yaan rabnaa. marka waxaa jira wax walba gurigan markii la raba in la soo galo albaabkaasaa maaragtay laga soo gelayaa. haddii qofku uuna wax akhriyin dee wanaaggii laftiisa inuuna garanin baa laga yaabaa. waxaan xusuustaa sheekhii la odhan jiray calaamatu alalbani raxmatullaahi calayhi, muxadidkii weynaa, yaa wuxuu odhan jiray markii uu ruuxu raba inuu guursado kitaab la yidhaha axkaamu zufaaf ha akhristo. macnaha waa kitaab guurka ka sheekaynaya iyo gabadha fiican sida loo doorto iyo sida loo guursado iyo xuquuqda labada muxuu ahaa zawjeynka, waxaas ka sheekeeyaa. marka waxa weeyaan ruuxu markuu raba inuu wax fiican qabto, waddadii uu u mari lahaa waa inuu helo, waa inuu akhriyo. dhallinyarada waxaan ku boorin lahaa, aniga laftaydu markii dhallinyarada loo yeeli la yidhaahdo dee da-da dadku ma ogola, oo xagga dhallinyarada aan isku tirin, markii xagga odayaasha la yidhaahdana dee iyadana waa niman. waxaan leeyahay dhallinyaradu ummadda iyadaa wax ka beddesha. maqaalo waxaa jirta caan oo la yidhaahdo adduunka wuxuu ku dhisan yahay xamaasatu shabaab wa xikmatu shuyuukh. xamaasatu shabaab
وحويان ضدك دليرة في فرعوني يحوق جودا يمسكح جودا يعقل جودا يؤدون كل سيء هدي مركا دليرة كذي اللي نقصي دايو وقرسكتور ولا بابيلها حكمة الشيوخ بالرا مركا أضيال دليرة تشوتشية وإلى وروحنا نجا إذا كان أقوم بدن ورصدا معها ورمحوها هذا كهر بوحنا دعي مركا وحيلين هدي دليرة أدون اللي نقصي داينا أدون كوها لكسني أضيال هدي نقصي داينا معنى مكينيان ودد محوها هاي وحي هوري اللي هيستون بكفر أتكانيان وحص مكينيان هرمر مكينيان سادرت ولذلك أقولها مارة تربوينت وحيدان لبعتنك سنة وهر سقفك مركي عقودة تيرانيان روح عمر جيسة وحيلين لبعتنك سنة وهر ريا قفك واسكاتور يوحبرشو وحو قريبي بقى اللهاجاتين ولا صليحي ولا صوبين تيران مركو جارو كونتن يلحدن يلا بعتنك وقدم بقى معناه عمري بني آدم أنت بدل واسطين يا 70 وحوي وحي دافع ماركتي النبي عليه السلام وحي دافع ماركتي كمتشر وحدي أنت بدل وكبحي أعمار أمتي ما بين 60 و70 النبي عليه الصلاة والسلام مركب حيلين كونتن يلحدن لبعتنك أصلا مركي اللي جارنا روح وحي وسواقبتي أو هراء وسواقبتي أو ترى صدنادي ترى فرتنادي حوجها أو حولها أو عقلها أو علمها أو أولها يكفر عليك يا أيوه وحصلنا الله ما إيمانيو أنت هرم بحاجزن أنت هرم مركب إسكت ضمان سادرت وحنو باهنا هاي ضل يرضى عقل جيدة مسكح جيدة فرعوني جيدة أود جيدة أنا باهنا هاي بينك كلام مركب لفيريا ضل يرضو والسيف محو هاي لبعف لي خطر بيجيلي كران ونقل ويكيني كران سلبيات إيجابيات حماني ونقل ويكيني كراني وإن له لو ضد ضيالة أو علماء أو عقلاء أو ويل أو أودتشي وإن له له وذوقتين علماء مركز كان الليان ذكر دليرة أكثر كأنت بدن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكي وبدنا وحفظي أما حنباري دليرة هاين وحال إلى المكثرين بالأحاديث أما أصحاب الألوف كن يكبدن حديث ذكر وريي أو الصحابة أو أحاديث بدنا يا هاين دليرة دي بهاين عائشة أبوه الرئيسي جابر بن عبد الله بن عمر أنس بن مالك عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر بن عاص صحابة يرى أمر الله تمادا إذا وحبا أدونك كسو كردسة وإن وقت هذا أي كفى إيديان أو خيرك أو كفى إيديان أو دينك أي دعوة أو كفى إيديان أو وناقة أو كفى إيديان وحنكسو قبل لها الصحة والفراغ حديث عبد الله بن عباس صحيح كتيرة لما النعمو dadka intooda badan si dhib yar ba ku dhaaftaa kama faa'iideystaan waa caafimaadka iyo qofku markuu kansho leeyahay uu kansho bannaan yahay markuu kansho uu qabo oo ruuxii maaragtay uu waqti haysto oo fursad uu haysto waa markuu dhalinyarada yahay wey ruuxa haddii uu mas-uul noqdo ama oday noqdo muxuu ahaa saaxiibul ciyaal noqdo reere iyo mas-uuliyad uu xambaaro waxa weeyaan sabab wax uu wax ku baran karaa way adkaan doontaa saasoo kale caafimaadkiisu iska yaraanba ruux hadduu weynaado waxa la yidhaha waxaa jira maradu tajajuc macnaha qofku mar hadduu weynaado xanuumo iyo lagama waayo lianna mar kastuu qofku weynaado geeri usii dhowaanayaa labada arrimood waxaa la rabaa marka inay ka badbaadaan dhallinyarada oo caafimaadkoodana ka faa'iideeyaan faraaqa iyo waqtiga iyo fursadda ay haystaanna inay ka faa'iideeyaan baa la rabaa waxaa la yidhi hala soo gaabiyo oo salaadiba ina haysa buuggan waa in la akhristo lagu dhaqmo lagu camal falo la iibsado dhalinyarada la dhiirigeliyo buugaa kale la qoro gabdho saasoo kale buugaag noocan oo kala qoray in la helo marka waxaa soo baxaya walidaalika waad ogtihiin qarbiga ama reer galbeedka ama culimmada reer galbeedku markay fadhiisteen ay dhaheen aan duminna islaamka niman barofesoro aqoon-yahana isu tegey waxay dhaheen xajka dhowr milyan oo qof baa hal mara aaminiinta haysa oo faatixa lagu hor akhrinayaa سين دبنا وحيد عن صورة قال ما لما دبين كرو وحيد عن ذلك القرآن كي هدي عن طبعين بدلوا لما بدل كره هدي كمانكم يا بقولار يا ملايين قارت لقى شرو قيم حفظنا على شو ما تكوشنا الهلية هدي بوقت يا هدي كتبتي اللي جوبه أو محوها المكتبة دي هدونك اللي جوبه ضد وحي بحفظنا الهلية محن سمينا باليدي صدق قرشة قاتين صدق قرشة قاتين وحل إلى هذا قيبي فليين waxay yiraahdeen markii aan rabno inaan islaamka dumino xabad iyo muxuuha madfac iyo hub iyo qarjajac iyo dagaal lagu dumin karo maxaan sameeynaa meelaha waaweyn haddaan ka hor nimaano dagaal baa la geli baa waxaan suuragal ma aha
marka waxaan samaynaynaa bay dhaheen kow meeshan ka bilaabaynaa waxaa weeye aan ka bilowna bay dhaheen duminta islaamka usrada aan ka bilowna bay dhaheen qoyska aan duminno waxay isweydiiyeen haddana qoyska seen u duminaa waxay dhaheen qoyska markaan duminayno waa inaan hooyada ka bilowna bay dhaheen hooyada aan duminno oo see loo duminayaa xaafaddii baa laga kaxaynayaa shaqaalaa laga dhigayaa hooyadii ilmihii bay dayacaysaa dibadda u baxaysaa ilaahayna waqarna fii buyuutikunna buu leeyahay markay maamadii ay ka maqnaata guriga carruurtii way baylahaysaa gurigii wuu baylahayaa iyadii bannaankaa wax lagaga soo akhrinayaa dhib badan iyo fitan badan baa dhici kara usrada markaan duminno waxaa soo baxaya bay dhaheen markaa ilmo aan faa'iido lahayn dhaqan lahayn tarbiyo lahayn diin lahayn baa soo baxaya laba waxay dhaheen culimmada aynu iyagana duminno oo see loo duminayaa culimmada waaweyn ee mas-uuliyiinta ah ee muftiyaasha ah ee murabbiyiinta ah aynu culimmada aynu muxuu ahaaye cayno aflagaadayno suuro xumayno si dadka dhallinyarada iyo jiilka dambe ay muxuu ahaayey ay iyagoo la caayayo oo wax laga qoraya ay u arkaan labadaa arrimood qodobka saddexaad waxay ka dhigeen qofka la yidhahdo macallinka oo runtii macallinku kaada an yakuuna rasuulan qofka macallinkaa bay dhaheen aan isagana ka takhallusno see looga takhallusayaa arrintii koowaad ay ku dhaqmeen bay ahayd oo jaamacadda azhar bay ka bilaabeen maxay ku sameeyeen waxay dhaheen macallinka diinta islaamka dhiga ama qur-aanka dhiga ama jaamacadda dhiga ama macadka ama madrasada dhiga mushaharkiisa ha la yareeyo dowladda uu ka tirsan yahay ha lagu cadaadiyo mushahar yar oo $100 iyo $200 iyo wax noocaas in la siiyo macallinka iskuulka dhigaya jaamacadaha maadigaa dhigaya waxyaabaha kala baranayana aynu $1,000 waddanka masar baa laga fuliyey markii ugu horreysay nin walba marka uu madraso dhigaya macad dhigaya islaam dhigaya qur-aan dhigaya intuu ka cararay oo garkii uu xiirtay uu surwaal xidhay yaa wuxuu yidhi waxaan u kacayaa muxuu ahaayey iskuul baan rabaa inaan barto iyo jaamacado iyo howlo noocaas insha allah meeshaas macallimadiina lagu dumiyey marka waxay dhaheen tii macallinka waan ku guulaysanay tii usrada iyo qoyska iyo maaragtay duminteedana waan ku guulaysanay tii culimadana wax badan baan kaga guulaysanay laakiin xajka kama hortegi karo qur-aanka kama hortegi karo waxyaabaha qaab aan uga hortagnaa ma jira bay dhaheen marka insha allahu waqtiga aad iyo aad cidhiidhi u ah khayru lkalaami maa qalla wadalla ilaahay subxaana wa tacaala markiiskan ha barakeeyo macallimiintan ha barakeeyo wasiirkii muxuu ahaaye dhisay hawshan oo waqaf ka dhigana maaragtay wax ku tarayna allaha barakeeyo oo runtii diinta islaamka maaragtay wax badan u gargaaray dhalinyarada kitaabka inoo qortay ama buugga inoo qortayna ilaahay ha barakeeyo kasoo qaybgalayaashana allaha barakeeyo wasiiradana allaha barakeeyo iyo mas-uuliyiinta inoo yimid iyo afhayeenada inoo yimid dhammaan qof kasta oo ka qayb qaatay hawshan oo suuro geliyeyna ilaahay subxaana wa tacaala ha barakeeyo billahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu